hadda waxaan ku suganahay xaafadda la yidhaaho magaalo Ugaaso oo ku taala magaalada Hargeysa haddaba magaca Ugaaso hooyadan garab fadhida ayaa dabcan la yidhaa xaafadana loogu magac daray bal hadda magacan iyo qaabka xaafadda loogu magac daray iyo waxa weeyaan hooyo waxa weeyaan horta magaca alxamdulillah rabbil caalamiin hooyada iyo aabbahay baa ila baxay iguna waqlalay laakiinse waxa weeyaan meeshan ilaahay baa idajiyay markii hooyo aan soo degay aan caruur yar baan haystay inaan ku korsado oo halka maqaaxi waxaan ka samaystay inaan ku korsado caruurtayda magaqaaxid markan ka samaystay leedka waxa la iga soo jeeday 150 ciwaanka telefoonka waxa la iga soo jeeday 150 waxa weeyaan hooyo markaan halka soo cidlaa degay waxa weeyaan maqaaxid baa alxamdulillah rabbil caalamiin barakowday in shaqaale badan dadkay badnaa waxaan ku xaafadii la soo degay waan ku barakoobay markaan ku barakoobay hooyo waxa weeyaan caruurtayda way igu kortay alxamdulillah rabbil caalamiin marka ilaahay baan hooyo ugu mahadinay magacu wuxuu ku baxay cidladaasaan soo degay oo gabaahiira oo cidina ila joogin waxa xaq leh adarkaysa ee meel walba degan waa uu igu yimid aniga geerashawaadan wuu samaysnaa laakiin se isaguna geerasho un buu ahaa ana magaalun baan ahaa markaanu magaaladaydii markaan la magac baxay dee geerashawaadana jaarun baan nahay imika lugiya lacag jaar baanu nahay marka waxa weeyaan hooyo saasay hayd cidladaasaan soo degay lugiya lacag markii la sameeyay ana mitirka la dhigay xamarji iyo ee dadka la siinayay kaliday baan joogay waxa weeyaan xaafadaydana kaliday baan soo degay ilaahay baa kalidii markaan soo degay ilaahay baa barakeeyay laba xaafadood kaliya aan ugu yimid Xuseen Cabdina la yiraahdo iyo Mahad Dheerayna la yiraahdo iyo waxaan ku yiri adu dhowr qalo remiyo iska degdegan ayaan ugu xaashi jiciir ayaan ugu yimid marka waxa weeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin oo iska barakowday saacidlada aan maqaxida ka sameeyay magac ula in magacaagii xaafadda dhan hadda loo bixiyo oo marka horena aad ii sheegtay in cidla ahayd oo hadda waxa sodadii hadda degan yihiin sideed u aragtaa wallahi hooyo si fiican baan u arkaa anoo kaliday halka jooga oo maqaxida inta sameeyay intan istuuduubo qof socdo aanan arag tacawana dhaho ayaan hooyo garanaya lixda markay gaadho 12 doornimana waraabayo ag marayo alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u arkaa in xaafadii balaadhatay magacaygina balaadhay dadkaygina balaadhiyay alxamdulillah rabbil caalamiin dadka inta laga degan waan ugu mahadnaqay ilaahay waana jecelay hooyo wixii yimaada iyo wixii ka shaqeeya iyo wixii soo degay iyo wixii ka maqan hooyo waan jecelay waan doonayaa hooyo alxamdulillah